qodobada waad xidiguhu maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona Bayern Munchen oo sheegtay in ay meeshii ka bedeli doonaan amaba ay ka aari doonaan wixii kulankii hore dhacay macallin Haykens wuxuu qabaa in PSG oo maalin dhaweed dhalinyaro yar oo aan la aqoon batumay inay caawa ka aari doonaan guuldaradii ay ka soo gaartay kulankii hore waxaad kaloo maanta xidiguhu ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin ciyaartooyga Raheem Sterling oo Man City u diidaya inuu heshiis u siixo cusub sidaas daraadeedna Madrid waxay leedahay baa la leeyahay oo iyagu xidiga way quudareynayaan inay la wareegaan Ronaldo oo lagu abaalmarin doono taalada dheer ee dalka Faransiiska kadib 2 maalin oo abaalmarinta Ballon d'Or la bixinayo isagoo ugu cadcad yahay waxaad kaloo xidiguhu ku maqli doontaan Gattuso oo hurdadii waayay markii Milan ay soo gaartay bareejo kana gaartay koox yar oo koox kasta ay iska garaacisay iyo qodobo kale ayaad maanta ku dhageysan doontaan barnaamijkeena oo ay qayb ka yihiin ciyaaraha caawa la ciyaaraya ee koobka Yurub kooxo badan oo Ingiriis ayaa xaqiijiyay soo bixidooda ciyaaraha Yurub laakiin waxaan malaysan karin ilaa hadda Manchester United inay xaqiiqsan kari laadahay u soo bixida ciyaaraha Champions League iyo kulamo kale oo muhiim ah Chelsea Atletico Madrid miyaan arki doonaa caawa Atletico Madrid oo ciyaaraha dhanba isaga haraysa xilli Rome ay u baahan tahay hal koox dhibcood si ay Qarabaq ugu hesho Atletico-na ciyaaraha gabi ahaanba looga reebo ma ilmaami karno PSG iyo Munchen oo caawa kuna weed ciyaari doono iyo qodobo kale oo muhiim ah barnaamijkeena ku maqli doontaan qaybaha kale ee barnaamijkeena ayaan gudugaleynaayo wararkii ciyaaraha waxyaabaha maanta ugu weyn barnaamijkeena waxa kamid ah Ronaldo iyo Messi ayaa ku tartami doona jaaisada Ballon d'Or sanadkan inkastoo ay u cadcad yahay in abaalmarinta la siiyo laacibka lagu magacaabo Ronaldo maadaama la fiirinayo waxyaabihii ku guuleystay sanadii hore oo Madrid uu la qaaday ciyaaraha La Liga iyo Champions League laakiin wax ka duwan wixii hore ay sameynayaan majalada France Football oo bixisa abaalmarinta Ballon d'Or waligoodna bixin jiray haddaba majalada France Football ee iska leh abaalmarinta Ballon d'Or waxay shaacisay in xafladda abaalmarinta lagu qaban doono taalada caanka ah ee Eiffel Tower iyada oo waliba xidiga ku guuleystay abaalmarinta uu gudoonsiin doono xidigii hore xulka Faransiiska ee David Ginola sanadkii hore markii France Football ay abaalmarintan dib ugu soo laabatay FIFA ma jirin wax xaflad ah oo loo qabtay waxaana si toos abaalmarinta loo geeyay Santiago Bernabeu waxa la yiri Ronaldo markaa meesha lagu siiyay laakiin xaflad lama qaban sanadkii hore laakiin sanadkan xaflad ayaa la qaban doonaa Champions League wuxuu gaaray xilligii wadnuhu ku dhagleyn jiray ee adigu dhanba naxdintu baad qabi jirtay baa la gaari rabaayo hadda caawa iyo habeen dambe baa ugu dambeeyo ciyaaraha gruubyada haddaba ciyaaro badan ayaa caawa la filayaa United wali ma soo bixin wali Manchester ma soo bixin bal caawa waanu arki doonaa dhibic bay u baahan tahay si ay u soo baxdo United bal waanu arki doonaa sidoo kale caawa PSG iyo Munchen ayaa ciyaari dhextaalaayo Bayern Munchen kulankii hore waa la waalay Mbappe iyo Neymar iyo Cavani wax kale ku sameeyeen bal laakiin caawa macalinka cusub ee kooxda horena u soo leelin jiray waxuu qabaa Munchen inay caawa aarsan doonto laakiin ciyaarta ugu adag waxay tahay Chelsea iyo Atletico Madrid sababtoo ah Atletico si ay u soo baxdo caawa waxay ku xiran tahay inay Chelsea garaacaan Roma lagu dhago waxay u badan tahay Atletico caawa ciyaaraha Champions League inay macsalaameyn doonto taa ay u badan tahay waxa kale maanta yana ciyaaraha ugu waaweyn Sportiga garsooraha caanka ah ee Michael Olivier ayaa la sheegay in uu garsoori doono ciyaarta u dhaxaysa kooxaha Manchester City iyo Manchester United isbuuca soo aadan waa garsoore aad u fiican ninka kano Olivier isaga ayaa loo dhiibay inuu ciyaarta garsooro AC Milan iyagu waa kuwii laga badi waa bareejo bay galeen isbuuca kano waliba Milan xilli ciyaareed xun bay ku jirtaayo tababareeda cusub Gattuso wuxuu leeyahay ilaa hadda waa hurdilaahay ilaa hadda hurdo niyad jaban seexanaya wiraabeynadano ma fiicna ayuu leeyahay Gattuso waxa lagu yaqaan inuu yahay nin spirit badan oo dagaalama Milan isaga loo dhiibay laakiin isbuucan bareejo ayuu ku furtay kulankiisii ugu horeeyay ciyaaraha kadib markii Montella la ceeriyay Gennaro Gattuso ayaa qirtay inuu san seexan habeenkii dhawaa uu bareejo galay kooxda Strogano ayaana marna wax guul ah gaarin xil ciyaareedkan laakiin Milan bay ka heshay dhibicdii ugu horeysay waana kooxda Benevento niyad baan la seexan kari waayay maxaa yeelay waxaan xalay oo idil ku ceshanayay ciyaartaas fiidiyoga ciyaarta ayaan daawanay wiil Gattuso oo ah macalinka cusub ee Milan qarar badan baa jira sidoo kale si wanaagsan uma ciyaarin balse waxaan arkay koox diyaar ah inay adkayso xiliyada adag koox u diyaar ah in ay is adkayso marka xiliyadu adag yihiin baan haystaa
ومدن عاون دون تايو ليهي ماستر جينيريا كاتوزو توبرها عصب اي سي ميلان الله محو غفور كتاغي كاتوزو وراوو يا كسو كعيان كو يري markii habeen dhaweyd ciyaartu laga bareeyay goolka oo gool hayba inta soo baxay madax kaga dhaliya goolka waxa kale yana maanta ciyaaraha ugu waaweyn Raheem Sterling ayaa waxa uu doonin inuu City u saxiixo wax heshiis cusub Sterling hadda heshiiskiisa City waxa ugu harsan 2 sano ayaa ugu harsan marka ninka kan ma doonayo ya 2 sano ka hor bay ahayd ninkan inuu ka soo tagay kooxda kubadda cagta Liverpool markuu ka soo tagay laakiin Sterling ayaa hadda Man City waxay isku dayaysaa inta uu san Sterling ciyaarin koobka adduunka inay ka saxiixato heshiis cusub balse ciyaartooyga ayaa leeyahay inaanu hadda doonin inuu heshiis cusub saxiixo taas waxay ka dhigan tahay Real Madrid inay hunguri yeeso ciyaartoogu ninka kan ayaa hadda waxa la siin doonaa mushaaraad qaali ah kadib markii uu bandhigyo fiican la yimaaday xilli ciyaareedka kanu marka Sterling-kii ayaa wuxuu leeyahay haddaan wax heshiis ma saxiixi doono tababaraha kooxda Munchen Hekens wuxuu doonayaa in guuldaradii kulankii hore Munchen soo gaartay in caawa ay maradu dib u ceshtaan oo ay maxaa la yiraahdaa dib isaga baaciyaan kuwa ka wayna runta ka hadalnaa ma filayo inaan qabanno hogaanka groupku ma filayo inaan qabanino hogaan groupku ma filayno waa inaan iska hilmaamnaa kulankii hore balse waa inaan jawaab ka bixinaayo leeyahay hadda waxaan haysanaa dooqyo badan oo dhanka weerarka kadib loo soo laabashadii Muller iyo Ribery waxaan ka hortagaynaa bari koox weyn oo haysata arinku ma ahan kaliya mid ku xiran weerarka ayuu raaciyay caawin ciyaarta dhici doonta ayo labada kooxood Munchen iyo PSG ay ciyaarayaan ciyaar weyn oo weyn ba barnaamijkeena maanta waa naga inta nabadgelyo